بسم الله الرحمن الرحيم maanta 19 July ay tahay 2024 waxaynu joognaa dhulkii barwaaqada la faciisan joognaa la faciisa maaha dambalka ka soo qabo ilaa ay wajaale waa dhulkii barwaaqada waa aniga fadxiya ku soo noqday la faciisa dhowr goor laakiin maanta waxaan nagu hayaa marti aad u qaaliya waxaan nagu hayaa walaalkeen Cabdisalaam oo Manchester deganaan jiray qurba jooga wadanka qurba ku soo galay Ingiriis haddana dib ugu soo noqday dhulkan wax ka qabtay Cabdisalaam Ali Maxamed waa Cabdisalaam Ali yarab ku magac dheeriyay odag aabihina uu nool yahay idin way joogtaan Cabdisalaam assalaamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد السلام horta anaku de wax isku ma sheegayno walaalana waa nahay saaxiibana waa nahay reer la faciisana isla nahay laakiin waxaan doonayay tolkeen iyo Soomaali weynigtaad kale bal inaan nooga waranto dhulkan aad asal ahaan u leedahay sidaad ku timid wixii ku qabsoomay iyo caqabadihii kala kulmay walaalo بسم الله الرحمن الرحيم. فتحي آديات بدو مع سنتاي وحنا مالينا يا إنتان ودنك جوجو أما قربا عن جوجو انترفيو وهري سيدنا وكلا أو عن دوبو أرت ودنك وحنا قصور نقولنا لبدي يكون يتضبيه طبعا في إلا سنة كلا عن جوجو سنة عن كم مقنع مجرين سر رسمي أنا وحنا قصور لبدي يكون لبعتن كي وقتي كورونا وبلامي waxaan ka hawlgalay hawlo fara badan beertan awriigu ku yaalo oo hadda aan dhameystirnay waxay ka kooban tahay ilaa 22 qoodi waa beer magaalada saaran oo magaaladiiba ay soo gaadhay oo kaalinta agteediya habase ahaatee waxaan aan go'aan ku gaadhay inaan riig u sameeyo ريجن وحلا بلعبي بشي لما بلاد كور بالا بلعبي إيريان أردن مركز ريجن كما بتان بقول إلى باتن شركة دن بقول لاتن متر وين دول كوس لقلايو كل ريجن تسأل هنا ده وحكي جوجا وبقول إلى باتن وي شركة دن أو لقلي يهاي دري دبا أو ويل سومالي ولا يهاي oo riig fara badan ka qoday deegaankeenan ayaa maanta dhameystirtay sida inii muuqata tijaabadiina dhameystiray waxa weeye waxaan interviewgan maanta aniga fadxinaan u duubeynaa deegaanka dambe laga bilaabo ilaa wajaale hal riig oo reerku uu leeyahay oo ka shaqeeyay ma jiro waa nicmad Ilaahay waa riig Soomaaliyeed وحوي هرو كسوق قضي لفعيسو كقضي ديجان كان وريرك ودقين هاي آذي آد بوجها والقلي وأنا نشقى في عموي بس وحن كو رجلنا يا عد كسي أو هوشة ريك إن ديجان كويه لنا قال يا صورني وقال قال السن قبل كان ففنوي أو كبحك وحنا كبحك المجرو مسافة أنت لاقو أو سمن إن له هلانا ووح آدي قالوا أوي كوكا إنا نيلا نوري ريجو كوكوبين يهاي وأنت هذا كيسين وويشكا يمشينكا يبويدس وضعته كوكا عد كسيو هوشا قبنا يسا أو ديجانكا أو ريلا فعيسا أما ريه رواء أما دنبل بها نقطة وحوي وأرن لو باهن يهاي بيركسا أوباهن ديجانكا سانا أوباهن عد كسيو هوشا isku soo abaabushaana waxay ku khasaaraysaa maaha dadkeena maanta waxay diyaar u yihiin inuu beertiisii uu ku ogolaado in riigii laga qodo in la maal gashado beerihii oo dhan baa diyaar u ah waxaan la soconaa roobeedka kaliya qamadii dadkii inay 3 sano u dambeysay ay waxba ku laayihiin kii systemkii dawladdu riigiga ay qodayeena waxba kama gaarayo dadkeenii waxa la wuxuu ka gaarayaa ma jirto kolka عدي بريفل أهان هاوش أنو قبانيسا هاول لو خسارة يا ماها أنا كنت ديار بانونا أنا هاوش شخصيا وقالي وحن أقولنا هاي لباتن بيرود إن كبضن أو ديار أو هديه الشيء للا قالوا رسمي
oo la isku waafaqsan yahay oo cadaaladda la marsiiyey ogolaanaya in riiga la qodo kolkaa cid kasta oo hawshaa gashaay hawl ay ku khasaaraysa maaha waana shaqo aad iyo aad u wanaagsan dee kama sheekayn karo lacagta maanta riiga yar ee 120kii ugu joogo kharash la qiyaasi kara maaha kolkaa cid kasta oo hawshaa galaysa waan ku dhiirigelinayaa waayahay cabdisalaam waxa ka dhawaajisay mid waa riig qof uu leeyahay adigu inta riigi la dul tagtid oo qodid oo tiraadid shiraaka waxbaan shiraako lahaana amba profit sharing baan ahaana dad badan waxa jira iyagu waxbaba ka rabinay waranu beerteedana qodaniyo ceelna waan rabaa lacagteedana dhiibanaya kuwa ka waran dad badan baa jira caynkaas oo sida adigu wax u kireysatay riigan u kireysanaya waa run weeyaanoo dad badan baa diyaar u ah oo beerahoogii inay riig qotaan doonaya waxaan aaminsanahay shaqadaasi haddii ay badatana xataa qiimahan caqligalka aan ahayn ee fara badani inuu isdhimayo waa run dadkii diyaar ba u yihiin ise waxay leeyihiin cid deegaankooda cid tolkooda cid walaalahooda oo riigii xataa costing price-ka ugu horeeya xataa haddii heshiis la galo dad baa diyaar u ah inay lacag bixiyaan iska dhaafe inay beertaba kugu wareejiyaan inta lacagtaadii ay baxayso waa system cusub oo dadkeenu u baahan yihiin ninka maanta la yiraahdo beertaadii baan qodaynaa wuxuu diyaar u yahay nuskeeda haddii muddo lagala wareegayo ama 5 sano ha ahaato ama 6 ha ahaatee kirayba ku kireeyaan waxaanan dhowr kun aanan gaaraynin bay beerdul ku wareejiyaan 7 sano ama 10 sano ninka yiraahdo riig baan kaaga qodayaana waxa laga yaabaa inay wax ugu daraan baa laga yaabaa waayahay walaalow dadka qurba joog waxaan sheegaynaa riigaasi internetka gala intuu joogo wad argaaran dootin anagu halkan waxba kama oranay laakiin qiimuhu waa wax fudud compressor kaasi iyo dhowrka gaari booyadu ku jirto oo nade wax cusub ahayn qiimaheedu wad arki doontiin laakiin waxa diyaara in anagu arintaasi walaalkay Cabdisalaam Ingiriiska inaan kula noqono jaaliyada inaan kula noqono Soomaalida kula noqono sida wax dhaamana inaan la nimaadno oo waxa maanta waxaan haynaa kow ninkii lacag ka bixiyay ee ceelka ka qoday kuwa kale halka ceelka kale ka qoday jirto Xasan baa ka qoday ina kale Axmed Dheere la xakan buu ka qoday lacagun baa kaga baxday hadda la isku geeyay lacagahoogaasi waa hal riig كودي مركا قالي أصلا إنه هو بهاي قالي هذا ريق وده هذا والله في عيسى حجونا سيدير بيجتي دول بدنه ولا لو أنت سان أنا كوسو كوبا يا عبد السلام لنا وركلو كحيجان يان كويكسين دونا أنا ريقة هاينا لكن نلاشى إثيوبيا يو صدق لقب سيد قرب جوجا إن بدن بوجوجا مستقبلك إن شاء الله يعني دون ندي وحنا كم دي أودياشة وكل أودياشة وده دمنا يعني كو عصبة صباح إلا في عيسى إلى هنا كردجو rag isku kalsoon dhulkoodana oo dadka lagu daba fadhiisan nin kalena ugu amartaa gulan karin insha Allah intaas ku soo gabagabeynaa wareysiga ugu horeeyay Cabdisalaam wabillahi tawfiiq